maxkamadda gobolka Baay ayaa maanta soo gabagabaysay dadkii ku eedeysanaa kiiska dilka laba caruur walaalo ahaa Allahu naxariistay Cabdiminci Aweys Cabdullaahi oo 8 jir ahaa iyo Aamina Aweys Cabdullaahi 7 jir ahayd oo 7 bishii Abriil ee sanadkan lagu dilay magaalada Beedhabo ee xarunta maamulka Koonfur Galbeed. Maxkamadda ayaa markii saddexaad maanta u fariistay dhageysiga dacwadan oo loo haystay ilaa 9 ruux 7 ka mid ah eedeysanayaasha ay maxkamadda fasaxday kadib markii lagu waayay wax dembi ah. Xafsa Shariif Cabdullaahi ayaa lagu xukumay dil toogasho oo ah qisaasta marxuumiinta Allah ha u naxariistay Cabdiminci Aweys Cabdullaahi iyo Aamina Aweys Cabdullaahi oo ay eedo wahayd. Maxamed Cali Saaq Shiniyey ayaa dhankiisa isaguna lagu xukumay 5 sano xarig ah halka Dr. Cabdullaahi Yuusuf Bashiir madaxii caafimaadka cisbitaalka guud oo qoray warqadda sheegaysa in caruurta la kufsaday inta aan la dilin kiiskana jahawareer geliyay sida xeer ilaalinta ku dooday lagu xukumay ganaax lacageed oo gaaraya $3,000. Ku-xigeenka xeer ilaaliyaha guud ee qaranka ayaa sharxay eedda loo haysto eedeysanayaasha. ma beenin karo inuu soo saaray laba qoraal oo kala duwan ma inkiri karo inuu ka gaabiyay waajibkii dhakhtarnimo ee loo igmaday ma inkiri karo inuu khibrad ahaan iyo farsamo ahaan ay liidato hawsha uu qabtay ma beenin karo inuu qoraalkaas uu soo saaray iyadoo aysan jirin hay'ad baaris booliis oo ka codsatay inuu baaro jiritaanka kufsiga sidaa daraaddeed waxaa maxkamadda ka codsanaya kow in eedeysanay Dr. Cabdullaahi Yuusuf Bashiir ina Faadumo Maxamed Khayr lagu helo faldambiyada ku xusan qodobada 366 368 371 xeerka ciqaabta Soomaaliyeed oo la akhriyo qodobka 44 xeerka ciqaabta Soomaaliyeed. labo in eedeysanay Dr. Cabdullaahi Yuusuf Bashiir lagu xukumo ciqaabta ku xusan qodobada sare ku xusan. maxkamaddu way mahadsantahay. ma inkiri karto inay bajaaj ka saartay cunay kuna dejisay suuqa xoolaha bajaajadana ay siisay lacag dhan $1. ma inkiri karto inay geysay bohol galaanjo ma inkiri karto inay halkaasi ku dishay labada cunug abbaaro 11 galabnimo ma inkiri karto inay dilkaasi u adeegsatay toorey ama mindi carbeed ma inkiri karto inay 6 maqrinimo ay ku soo dhoqotay gurigeeda ma inkiri karto in subaxii 8/4/2021 inay joogtay gurigii meedka ilmaha la keenay mana inkiri karto in laga soo qabtay gurigii la keenay meedka ilmaha. sidaa daraaddeed waxaan maxkamadda ka codsanayaa kow in eedeysanay Xafsa Shariif Cabdullaahi ina asli mursal lagu helo faldambiyeedka ku xusan qodobka 434 xeerka ciqaabta Soomaaliyeed. labo in eedeysanay Xafsa lagu xukumo ciqaabta ku xusan qodobka 434. maxkamaddu way mahadsantahay. intay maxkamadda socotay waxaa sidoo kale goobta la soo istaajiyay oo ka hadlay guddiga madaxweynaha dowlad goboleedka Koonfur Galbeed wixii saaray baaritaanka kiiskan oo gudoomiye u ahaa wasiirkii hore ee cadaaladda dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Maxamed Xuseen Xasan John iyo qaar ka mid ah marqaatiyaal kiiskan wax kala socday. ribadkuna gudbini xiraaleyahana haaye maxkamadda kale way la wadaagay oo xiraaleyda la wadaagtay gabagabada oo gudbini ma haaye in oo 8 qof guddiga baarista suubiyaay in aragay iyo eedeysanayaal ay shal eedeysaniinka boqodo goone laakiin inta kurti guddiga aragay iyo eedeysanayaal aan hayna oo xeer ilaalinta fasaxdo maxkamadda iyo umaraas la fasaxo yada may bakan kulmay bajaaj wadi shaqeeyay gabarto lamano ka wadata yema yartay suuq hoola faday suuq hoola $1 bariseri kijiyay suuq badda ha qaasan $1 meelwada kijiyay $1 ka sii $1 qaaday gabartaas qaaday lamano wada suuq hoola jeey masaajidka eelka meelishiido biyaan banaanka lawaatilikun kaashalaaysi magaalada Orangali. Xafsa Shariif Cabdullaahi oo ku eedeysanayd dilka caruurta walaalaha ayaa goobta ka qiratay falka lagu soo eedeeyay. هيا شرح ما فهم إذا إدارة بالإثيو بعده فجأة صارت ميلا بغلطنا عندي أنا كذي ugu dambeyn garsooraha maxkamadda gobolka Baay Axmed Sheekh Nuur Axmed Zaki ayaa ku dhawaaqay natiijada xukunka. maxkamaddu waxa uu cadaatay in eedeysanayaasha ay yihiin dambiilayaal galay dambiga lagu soo oogay waxayna ku kala xukuntay sida tan. kow
حفصة شريف عبد الله دل توغشا قصاصي مرحومين عبد المنعم أويس عبد الله يا آمنة أويس عبد الله لابو محمد علي إساق شيني 5 سنة وحركة 6 دكتور عبد الله يوسف بشير جناح لعقد عدن $3,000 sidoo kale maxkamaddu waxay dib xuriyadooda u siisay dadka kale ah Awlaada Nuur Yarow 2 Cabdiladiif Isaaq Cali محمد أحمد محمد 4 آدم رنجيلة عبدي آدم حسن مصلح يوسف آدم محمد إسماعيل محمد محمد عبد العزيز صلاة